Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada barashada MS Word cashirkii 15aad. Cashirkan waxaan kaga hadlaynaa header and footer. Waxaan baran doonaa sida loo soo geliyo header loona edit gareeyo ama wax looga bedelo. Sidoo kale waxaan baranaynaa sida loo soo geliyo footer wax looga bedelo, page number sida loogu soo daro, taariikhda iyo markaasi time-ka ama waqtiga sida loogu soo daro. Sidoo kale waxaan baranaynaa document info iyo option. Marka koowaad waxaan soo gashanaynaa qoraalka qaabka lagu soo geliyo hore aan soo ogaanay wuxuu ahaa equal run rand kadib shift adoo haysaa number saala dooranaysa kadib ewer dooranaysa kadib enter aan leedahay. Sida hadda qoraalka soo gelinay header iyo footer markaa soo gelinaysid laba si baa loo soo geliyaa. Qaab koowaad waa in qoraalkaada korkiisa laba mar klik aad siiso. Sida ujeedada waxaa soo galay header. Waxaa kaloo soo gelin kartaa saada ku dhufanaysaa kadib waxaa ka dooranaysaa halkan ay qoran tahay header kadib waxaa kusoo bixi doono noocyo badan oo header ka ah midka doonto ayaad markaa ka bedelaysaa aad ka dooranaysaa kana dooranayna hadda. Hadda qaabka loo soo geliyo waa aragnay. Qaabka wax looga bedelaa document title kana bedelaynaa laba mar klik si kadib waxaan iska qoranayaa news. Qaabka loo soo gelin karaa taariikhda date and time ku dhufanaysaa kadib halkan aad soo dooranaysaa. Taariikhda hadda waxay jirtaa dhanka bidix. Sideen dhexda ku geyn karaa midigna ku geyn karaa. Waxaad samaynaysaa waxaa imaanaysaa taariikhda horteeda meesha Tuesday ay ka horeyso kadib waxaad dooranaysaa meesha ay qoran tahay insert alignment tab kadib center ku leedahay dhexda iyo aadaya mar kale insert alignment tab ku laabo kadib waxaad ka dooranaysaa right si midigta uu aado. Sidaas aad samaynaysaa. Qofka diyaarinaya warqadan magaciisa waa ku dari kartaa. Halkan klik si kadib waxaad ku dhufanaysaa document info kadib awda ku soo dhufanaysaa. Halkan waxaad gelin kartaa qofka warqada diyaarinaya magaciisa. Hadda waxaan aragnay sida header loo soo geliyo sidoo kale sida wax looga bedelo. Waxaan ku xijinaynaa qaybtan optionka waxa ugu horeeya different first page haddii tigta aan saarno waxaa dhici doontaa in first page aan loo sameynin header. Sida ujeedo tigta markaan saaray headerka ma yeelan doono first page laakiin pages kale waa yeelan doonaan. Saas loo isticmaala midaas. Different odd and even waxaa loola jeedaa haddii aan ku dhufto different odd and even tig aan saaro oddka ma yeelan doono oddka header ma yeelan doono. Si aan u hubino qoraalkan dhowr mar marka intaan koobiyo dhowr mar paste dhahaya control C aan leeyahay kadib control V si pages kale aan u helo. Hadda aan fiirino haddii aan tig saaro different odd and even headerka lama saari doono midka evenka saa ujeedo. Number 2 waa even waaye lama saarin laakiin number 3 wuu leeyahay. Marka sidaas loo isticmaala. Show document text-ka haddii tigta aan ka qaado qoraalka wuu qarsoomaa sida ujeedo. Haddaan kusoo celiyana qoraalka wuu kusoo laabanaya. Qaybtan position-ka ah waxaa ugu horeeya header from top. Headerka iyo markaa qoraalka meesha ka bilowdo ayaa la kala markaa space dhexdooda ayaa loo sameyn doonaa sida arkayno. Sida ujeedo dadka way kala soo noqonayaan. Haddii aad u baahnaan waa soo celin kartaa. Midaan footer from bottom waxaan ku arki doonaa footerka. Headerka qaabka loo remove gareeyo oo loo bixiyo header ku dhufanaysaa kadib waxaa leedahay remove header ku dhufanaysaa kadib saas ku baxay. Footerkan gelinaa footer markaad soo gelinaysid laba qaab soo gelin kartaa. Qaab koowaad waa in aad page-ka meesha hoose aad imaato laba mar klik aad siiso. Sida ujeedo footer ayaa soo galay. Qaab kale wuxuu noqonayaa insert ku dhufanaysaa kadib waxaad dooranaysaa footer noocyo badan halkan leeyahay midkaad doonto iska dooran kartaa. Saa markuu kugu soo galo halkan waxaad doonto ayaad ku qoran kartaa. Footer from bottom kan haddii aan fiirino sida ujeedo qaybta hoose ayuu kor ayuu soo aadaya markaad isticmaalayso kala fogeynaya. Qaabkaas loo isticmaalaa. Sida loo remove gareeyo footerka waxaad tagaysaa footer kadib waxaa leedahay remove footer. Page number noo haray. Page number markaan furno qaybo badan uu leeyahay bottomka badan la isticmaalaa kadib bottom waxaan kasii isticmaalinaa midkaan kasii isticmaalina. Page number ka qaabkaas loo geliyo. Remove gareynaysa isagana
sidoo kale remove page number ayaad dhehaysaa. Good. Okay, hadda waxaan baranay qaabka header loo soo geliyo iyo footer sidoo kale iyo loo edit gareeyo page number, date and time, document info and option. halkaas ku jirina insha Allah cashar kala socdaan haddaan ugu cusub tahay fadlan subscribe noo saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.